معرفة نشتي في عمو كاني هلا أبور في عمو كاني أردي في عني كوالتي وسميه وحال روالدين تإني كلا قيب قلان أنا ما قوي سكول كإنه بزنس يعني وحان قوائنه ببلغ يعني أنا فتنت أدبي أقرأ غير الكتب إن غابت الأصحاب وصاحب الكتاب فيه حديث سمر مسير بصور كم قصر الحكاية لطيفة للغاية فالعلم في الصدور يسري للصدور. Step by step we coming, step by step running bigger, step by step we listen. iskuulku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood waa nursery and primary macrifa nursery and primary school primary waa dugsiga hoose dhexe fasalka koobaad ilaa iyo fasalka sideedaad nursery-gu waa qaybta loo yaqaano ECE xagga tacliinta oo ah early childhood education cunugu intuusan waxbarashada gaarin waxa uu la sii bari karo waliba annaga iskuul ahaan annagoo leh nursery-ga 1 iyo nursery-ga 2 haddana insha Allah qorshahayaga waxa ku sii jira playhood class fasal yiraahdo oo ardayda inta ka sii hooseysa inaanu aasaasno waxaan dhignaa 9 maado oo maadada ugu yar ay ka kooban tahay 12 chapter ama cutub waxaan kaloo dhignaa maadooyin aan iskuulada kale lagu dhigin aan aaminsanahay Soomaaliya oo dhan inaan anagu ka dhigno oo leeyahay LS subject ama life skills xirfadaha oo ardayga aan theory u siina hadda insha Allah sanadaha dambana aan jecelahay inaan u siino si practical laakiin waa barnaamij oo maarta ku jira under supervision aanu bal eegayno sida ardaydu ula qabsan karto iyo sida uu socon karo runtiina sanadkan buu bilowday waxaana ka muuqda horumar weyn baa ka muuqda waxaan kaloo leenahay galaasyo la yiraahdo course classes oo ah ardayda ka timaada dugsiyada kale ee afka Carabiga ama afka Soomaaliga ku soo barata isagoo ardaygii wax yaqaana in systemkiisa laga dhigo system Ingiriis isagoo crash program ah lana ilaalinayo tayadii ardayga iyo inuu fasalka la qabsan karo inta ka bacdi waxaan halkan jeclahay inaan ka sheego dhammaan 12 macallin ka hawlgala iskuulka macrifa inay yihiin dad ka soo baxay ama ka soo qalin jabiyay teacher training institutes macadka tababarka macallimiinta midba heerku doona ha noqdo midba subjectiga ama maadada uu doona ha noqdo markaas macallimiinta tayaysan oo tababarani waxay keenaysaa in tayada waxbarashada ardayga ay kor u qaado. There are two words in life that are actually difficult to say. One of them is hello for the first time and goodbye the last time. It's a time that I must bid farewell to my class 8 candidates. I have been their class teacher since they were in class 6. Up to now, they are making their exit out of Marifa. Indeed, I may lack the correct words to describe my boys and girls. The boys and girls throughout their stay at Marifa, they have been obedient, they have been resilient, they have been effervescent,
They have been very, very disciplined lots that I would wish to have in life. I also join the rest in commending you for your hard work and dedication that has made you reach this far. It is indeed an emotional day. To the parents, relatives, friends, to our graduates who are graduating today, and just one more step before they join the outside world. Indeed, as has been mentioned earlier, these young boys and girls join Marifa at different times. Some of them, by the time they came to Marifa, they could repeat the exact words being said by the teacher. I thought it could not work, but eventually we were able to achieve our objective. It is very interesting, if I may cite some few occasions when I could tell a people, come here. The people also tells me, come here. Go there. The people also said me, go there. But with the time, we were able to nurture these peoples. We were able to bring them to the system until such a time that you can find them able to express themselves in English. Schoolku maamulkiisu waa business weeyaan waxay soo bandhigayaan waxayna ka galaan mayna qanciyeen misayna ma qancin. That's the question. Waa wax maaragtay loo baahan yahay laga jawaabo. Runtii aniga waa qanciyeen aad baan u sii qortigareynaya. Waxaan jeclaan lahaa in dad badan ay ku daydaan laana wax walba qofun baa ilaawa. Inta haddaan kaga gudbo innagu waalidiin baynu nahay ilmaynu nahay waalid haddaynu nahay waxaan malaynayaa awaadee hadlay wuxuu inoo soo jeediyey codsigaas waxaan malaynayaa meel dheer buu yani taabanaya runtii waa moobeelka moobeelku waa cadow waynu ognahay iyaguna way ogyihiin ardaduna way ogtahay marka mar haddaynu ahmiyaddu tahay inaynu waxbarashada ilmaheena qayb ka qaadano waa inaanu qaadanaa waxyaalaha laynoo soo jeediyey sida maqalka iyo sida oralkaaba laynoo siiyey taa marka qolayada waalidiinta waan qaadanaynaa insha allah. Ardayda markay soo bandhigayaan waxyaabaha halka ku soo bandhigayaan dhiirigelinta leeyin waa aragtaan sida wax soo bandhigayaan waa aragtaan micnaha waxay tusaysaa ardayda baqdintii iyo waxyaabaha dhan in laga jaray ardayda markuu soo istaago wax soo bandhigayo dadka micnaha hore wax soo bartay oo iskuulada gaalkacay ku soo bartay hadii la dhaw soo istaag mi soo istaag karo wax ma soo bandhigi karo micnaha uu gariir buu bilaabay shivering buu bilaabay xishood buu bilaabay inuu xishoodo ma soo istaagayo ka yaab inuu soo istaago arday inta ku soo istaago waalidiinta dhan dhamaantood hortooda soo istaago ma sha Allah way Soomaalida ognahay waa dad quality leh talent leh annagoo dawladeena duusan tahay annagoo duruufaha ku jirno haddana waxbarashadii marna ma istaagin waxaan garanayaa duruufaha ku soo bartay fasalka dhigan jiray iskuulka dhigan jiray maalinna maleeshi beelad ba qabsan jirtay maalinna fasal buu ahaa walaga saaray ka baxbal waliye askar ba qabsanaysa maanta duruufaha ku jirno waa garanaynaa xafladahan maanta qiimaha badan anaga si uma yeelan xilliyadan ku soo aadnay aabeen iyo waalidiintan kama soo qayb gali jirin iskuulkeena xaflad noocan oo mari jirin laakiin idinka nasiib baa u yeelateen in xafladaha la dhigo maxaa yeelay amniga iyo nabad isbedeshay marka waxaan rabnaa in Ilaahay u mahad celisaan talentiga Soomaalida ee leedahayna meel walba ay joogtana laga faa'iideysto waxaan kala rabaa inaan ku daro hal dhaqan baa jira qofku markuu xoogo yar lacag helo wuxuu ka fikirayaa ilmihiisa inuu Nairobi geeyo ama Kampala geeyo ama Turkiga geeyo ilmaha Kampala waa geesi laakiin kuwa adeerku way ka waran kuwa awgu way ka waran kuwa gabadha iska waran kuwa ayada way ka waran yaa u maqan marka waxaan kula talinayaa waalidiintan waxa weeye talentiga ay leeyihiin inay ka faa'iideystaan waxbarashada dalkan la maalgashto macrifo initiative fiican buu keenay hal abuur fiican buu keenay arday fiican iyo quality uu sameeyay waxa la rabaa waalidiinta inay kala qayb galaan aniga ma qabo iskuulka inuu business yahay waxaan qabaa inuu public yahay ardayda
dadaal badan baad soo gasheen maasha Allah haddana dadaalkiina sii wada baan ina leeyahay oo walibana taqwada Allahna ku dadaala maamulka oo maalin walba xalfad cajiiba u soo dhiga ardayda waayo iskoolka la saan ognahay lagama dhigo xalfad annaga waxaan lahayn ilmo yar oo muxuu ahay biyunita oo xalfad loo dhigay maasha Allah waa iskoolka almaarifa noogu horeysay ilmuhu dhiirigelin badan ayay ka helahayaan markay arkaan ayagii oo xalfad loo dhigay oo waalidkii iyo ummadan badan martidan badan oo ka sharafta leh ay ka soo qayb galeen oo hadalkiisa iyo kaalintiisa la siiyay inuu hadlo ama aqoonti macallimiintu ay bareen inuu halka uu ku soo bandhigo sida hadda halka waalidku ka hadlayeen loo ka hadlayay wax badan baa moodaa inay tilmaamayaan haddii aad wax garanaysaan waalid ahaan oo aad dareen leedihiin ubadku waa idinla hadleen wax badan bay idiin sheegeen iskama ay oran macallimiinta u tababaran inay wax soo gudbiyaan ilmuhu oo wax loo sheego meeshuu guriga hadhow ku sheekayn lahaa warkii oo dhan halkaa lagu dhameeyey waad garan karaysaan rabitaanka ubadka waa dhiirigelinta cid kasta oo dugsiga joogta sida maamulka iyo macallimiintu wax barid bay leeyihiin laakiin dhiirigelinta idinkaa iskale dhiirigelinta idinkaa iskale bogaadinta idinkaa iskale ababinta idinkaa iskale waxsiinta idinkaa iskale jeegaraynta idinkaa iskale mar walba hagidda aad hagaysaa waxa weeye macallinku wixii guriga ka yimid buu wax ugu saaidinaya ilmaha yari oo marka hore la soo ababiyo oo luqadda lagu soo ababiyo waa muftaaxi aqoonta weey la tiraajir hadda luqadda ingiriiska ba iskuulku hadda wax ku dhigaa luqadda Soomaaligana gaar buu qaataa luqadda Carabiga iyo tarbiyada Islaamna waa qaataa mawaadka intiisa kale oo dhan way qaataan marka halka maxaa ka dareemaysaa wax badan baa ka dareemaysaa waxa laga yaabaa sanadihii hore dadka qaarkiis ama marka intiina badan wax baranayseen ubad waxa arkaysaa ka tagay dugsiga ka cararaya waalidka ka dhaga adeegaya mar walba waalidka iyo ubadkii inay iska hor yimaadaan ay ilmuhu diidayaan iskuulka aan ka warqabin waa problem meesha uu ka yimid baan ku sheegaya ilmaha luqadda aan lagu tababarin aan lagu ababin aan la barin waxa weeye hadhow waxa imaanaysa inuusan la qabsan ubadka kale inuusan la qabsan meeshii caqli ahaan adiga uu kugu sheegi lahaa wuxuu door biday inuu googooyo inuu ka tago inuu iskuulkii darabgareeyo inuu quraankii ka tago maxaa keenay waxa ku adkaatay wax baridii hore iyo luqadii hore ama carabi ha ahaato ama luqadaha kala ahaatee waxaana muftaax u ah ilmahaas maxay yeel maxaa muftaax u ah waxaa muftaax u ah marka hore aan dugsiga quraanka la geyn arday tarbiyeysan akhlaaq leh aqoon leh ma sha Allah Allah u ziyaadiyo waad wada arkayseen dhaqamadooda iyo sulugooda wajigooda ayay ka muuqatay marka adinkana waa idinkaga mahadcelinaa sida aad noo garab istaagteen kharashka aad uga bixinayseen wax kasta oo u baahan oo iskuulku u baahan yahay aad waxa weeye u dhiibayseen aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa iskuulka waxa dhisa waa waalid iskuulkan waxa leh waa waalid waxa ay caruurtoodu wax uga baranayaan waxa weeye waa adinka waxa layna ka rabaa horumarkiisa iyo wax kasta uu u baahan yahay sida aad ugu taagantihiin inaa ugu sii istaagtaan waxaan rabaa kale inaan u mahadceliyo macallimiintii ardaydan wax baraysay
waxaan iskuul ka dhignaa ardada hadda fasalka 8aad ee qalin jabinaysa waxa ay soo galaan 1 saac bay soo galaan waxa ay ka baxaan 5 galabnimo ay ka baxaan waxa ay dhiganayaan saacad ka badan 12 saacadood ayaa wax la barayay carabigooda waa arkayseen ma tarbiyadooda iyo luqadooda ingiriiskana waa arkayseen macallimiintii soo tababartay waxa leenahay jazaakumullahu khayran rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ninkii aan dadka ku shukrin ilaahay kuma shukriyo man lam yashkuri naasa lam yashkuri illah waxaan kaloo u mahadcelinayaa ardadii barnaamijkan quruxda badan soo jeedinaysay geesinimada u soo jeedinaysay nin walba meeshii kaalinku kaga qornaa runtii sida qiimiga badan oo uga soo baxeen ayagana waa u mahadcelinaynaa waxaan rabaa inaan ku daro waxa idin haray wax ka yar 15 cisho imtixaankii naqliga ahaa shahaadiga ahaa ayaad u fariisanaysaan waxaan idinka rabaa dadaalkiina inaad laba laabtaan habeen iyo maalin wax akhrisaan man talaba al-ula sahra layali ninka kaalinka koowaad raba inuu galo oo raba 10 arday oo ugu horeeyo inuu ka mid noqdo waa inuu hameena soo jeeda waad ogtihiin waalidiintiin inta kharash ay idinka soo bixiyeen iskuulka fiigiisa baabuurkii buugtii dharkii naas oo ay ugu dambeysay xafladda hadda qalan jibinta waxa weeye la idin qabanayo lacagta laga qaaday waxaasoo dhan waxa laga ka rabaa inaan ka dhigin hal bacaad lagu lisay inaad waalidkeed uga mahadnaqdaan oo aad u abaalgudaan abaalgudkiisuna waxa weeye maanta uu ku farxi karo kaalmaha koobaad intaad gashaan 800 baa lagu saxaaya 800 700 iyo wax ka sareeya qof walba inuu ku hamiyo inuu keensado